dad badan oo siyaasadda ku jira iyo kuwa dibadda ka jooga ayaa maalmihii dhowaa isweydiinayay go'aanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee khilaafka taagan ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyay inay gadaal ka riixayso xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali kheyre 17kii bishan ayaa waxaa madaxweyne farmaajo u tagay qaar ka mid ah gabdhaha baarlamaanka oo ka codsaday madaxweyne farmaajo inuu xaaladda soo farageliyo oo dhexdhexaadiyo khilaafka jira gabdhihii xildhibaanada ahaa ee u taga madaxweynaha kana codsaday in xaaladda uu soo farageliyo waxaa ka mid ahayd xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxa aan weydiiyey kulankii ay madaxweynaha la yeesheen iyo waxa ku dhaliyey ka gabdho ahaan in ay iyagu isbahaystaan oo ay madaxweynaha u tagaan si fiican buu noo soo dhaweeyey hadday xildhibaano qaran baan ahayn hadday xildhibaanadii isaga doortay qayb ka mid ah oo iyo hadday wada dooraninba saakay isaga dalka madaxweyne ka ah annagana xildhibaanadii waxaana nagu dhaliyey in waxay ahayd markaan u tagaynay 17 bisha khilaafkana wuxuu soo bilowday 4 bisha madaxweynihii ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo 24 saacadood kale ay kasoo wareegatay arrintu dhibka dhacdayna 5 maalmood laga joogo ma uusan hadlin horeyna dhacdooyin hore u dhacay oo dalka oga dhacay oo madaxweynaha ka hadlinaa jirtay marka hadda madaxweynaha mas'uuliyada dalkan ka saaran looma dooranin madaxweynaha markii xafladaha jiraan iyo markii casuumadaha jiraan inuu ka hadlo ama markii ciidamada kaliya laga hadlaayo oo military laga hadlaayo inuu ka hadlo madaxweynaha dalkaanu mas'uul ka yahay wax kasta oo dalkan ka dhaco waa ninkii ka hadli lahaa ama position ka qaadan lahaa ama yani ka jawaabi lahaa waxyaabaha dadku ay ku wareerayaan oo jihayn lahaa dalkan gudoomiyaha baarlamaanka ee mooshinka uu ka yaala xilka qaadistiisa maxamed cismaan jawaare ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aqbalay mooshinka isagoo dalbaday in loo maro wado sax ah oo sharciga baarlamaanka waafaqsan dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo xukuumadda aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhamaaday waxaan ogolnahay oo ogolaaday in marta mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tilaabadii habooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isagu shalay baajiyay safar uu ku tagi lahaa dalka Qatar si xaaladaasi uu wax uga qabto xildhibaanad aamina oo kamid ahayd gabdhaha xildhibaanada ee sabtidii u tagay madaxweynaha waxa ay sheegtay inay weydiisteen madaxweynaha in arinta khilaafka uu wax ka qabto yani waxaanan filaynin inaan kala soo kulanay waxaan kala soo kulanay madaxweynaha in uusan ba aad yani ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad ula fududeed waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaana aanan xilna lagu hayn karin dalna lagu hogaamin karin oo in uu hadlo ay muhiim tahay siduu rabo iyo meeshuu raba ha ku hadlo laakiin in ay muhiim tahay arrintan inuu ka hadlo oo aynan dhuumasho iyo inuu ka jeejeesto iyo aynan huraynin arrintan wuxuu noo sheegay oo markii dambe aan kusoo kala tagnay yani in gudoomiyaha baarlamaankana uu arki doono prime ministerkana uu arki doono uusan prime ministerka ama gudoomiyaha uusan arkinba 4 maalmood oo dhibaatada jirtay taas waaye waxa niyad jabka keenay oo aan ku sheegayo oo aan dhahayo shacabka Soomaaliyeed inaan maqashiyo waan ka xumahay balse madaxweyne farmaajo waxa uu xalay la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka oo ay ka wada hadleen xaaladda muranka uu ka taagan yahay ee mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka haddaba kulankaasi kadib ayaan waxaan ka wareystay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene oo ka mid ah xildhibaanada ku dhow gudoomiyaha baarlamaanka waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen wuxuu sidoo kale gudoomiye jawaari madaxweynaha u sheegay in muhiim ay tahay codayntaas inay ka dhacdo meel amnigeeda iyo ay sugan yahay korjeegteyn amaba marqaatina ay u joogaan baarlamaanka aqalkiisa sare maadaama ay kamid yihiin baarlamaankii Soomaaliyeed sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ama culimo diinka iyo bulshada rayidkaba inay goobjoog ka ahaadaan si arintaas ay u noqoto qaab daahfurnaan ah oo shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo baarlamaanka aqalkiisa sareba ay marxaati ugu noqdaan iyo inay ku dhacdo codayntaas muddadii loogu tiragalay ee ah 10 cisho oo ama 10 maalin ee xeer hoosaadka baarlamaanka golaha shacabka uu tilmaamayo taasoo kasoo bilaabanaysa maalintii mooshinka la keenay ee 14 bishan March 10 maalmood gudahood si xilka looga qaado gudoomiye jawaari
waxaa loo baahan yahay in ay ka codeeyaan 3 meelood oo 2 tirada guud ee baarlamaanka taasoo ka dhigaysa in ka badan 180 xildhibaan in ay taageeraan mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari waxaa socda ololayaal loogu jiro in dhinac walba uu helo tiro ku filan oo ama uu ku rido ama xilka uu ku sii joogo gudoomiye Jawaari Muqdisho waxay maalmahan marti gelin doontaa kulamo qadooyin iyo xidxidashada mudanayaasha baarlamaanka si qolo walba go'aankeeda ay u xajisato waxay dad badani isweydiinayaan waxa xigi doona mooshinkan